Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaari aad iyo aad baan idiin salaamayaa meel walbo oo dunida daafeeda aad ka wada joogtaan guul iyo gobonimona waa idiin rajeynayaa akhyaari haddaan horey oga sii dhaco suuqa Arsenal iyo maanta wararkii ka cusbaaba wararkii oo idil maanta waxay kusoo gabagaboobeen oo ku idil yihiinba laba ciyaaryahan oo keliya oo aad loo hadlayo weliba ciyaaryahanka koowaad ee aadka wararka u hayaan oo weliba sirar badan oo qarsoonaa maanta ay wararka banaanka usoo banbixiyeen ayaa waxay sheegayeen wararka maanta in Pedro Neto ay Arsenal bishan oo idilba ay Wolves ay wada hadal kula jirtay ciyaaryahanka ayagoo ka wada hadlayaan mustaqbalkiisa inay iib usoo bandhigayaan inay iska doonayaan Arsenal halka waxaa la sheegay inay kusoo bandhigtay interestiga ay ciyaaryahanka u hayaan ayna doonayaan inay ka saxiixaan Wolves sida ogtihiin Pedro Neto already waa Premier League proven waa 22 sano jir aad u fiican labada garabba waxa weeyaan ciyaaryahanka labada garabba dab buu ku yahay meel aad saartaba aad buuna ugu fiican yahay marka wararka maanta aad ay u hadal hayeen ciyaaryahankaas waxayna u eg tahay baa la yiri garabyada Arsenal ay raadinayso idilba inuu asaga ka noqon doono midka ay ugu dambeyn ay keento waayo waxa weeyaan baa la yiri bishan oo idilba Arsenal ciyaaryahanka ishiisa ugu hayso Wolvesna wada hadal bay ku jirtay oo xitaa waxay ku qasbaysay inay ciyaaryahanka ay ka iibsadaan maadaama Wolves laba ciyaaryahan ay keensatay already oo garab uu ka mid yahay oo ciyaaryahanka idin sheegayay Gonzalo Guedes ciyaaryahan Portuguese oo aad u fiican marka wararka ay akhyaari maanta ka soo baxayay suuqa Arsenal iyo newska guud ahaanba sidoo kale ciyaaryahanka xalay ay idin sheegayay isna ciyaarihiisa daawanayo ninkii xalay aan lahaa dadku waxay ku magac dareen Ukrainian Neymar marka aad fiiriso play style-ka ciyaaryahanka waa Neymar buu u egyahay qaabku wax u dribble gareenayo oo banoonta iyo qaabku banoonta u drive gareenayo markuu jiidayo qaabku goolka u xiray ciyaaryahanka isoo idil waa Neymar marka Arsenal kan waxa oran lahaa haday soo iibisay xitaa loan house iyo dirsato markuu u adkaado oo ku soo xamaasho ciyaaryahanka waa sheegtay Donetsk ay u dheela waa 22 sano jir waxa weeyaan aad buu u fiican yahay qaabku banoon u drive gareenayo iyo positionadu ka imaanayo ciyaaryahanku waa Neymar qofkii intuu fiiriyay yiri ninkan Neymar waa Ukrainian Neymar ninkii yiri waa aad u aragti badan oo Neymar aad u yaqaan waayo ciyaaryahanka marka aad daawataba qaabku banoonta u waday qaabka waliba skillska ninkaas oo kale uu leeyahay oo ciyaarta socoto ayuu iska baashaala ma fahanteen marka ninkaana maanta ayaan aad ugu fiirsaday hasa ahaatee waa mustaqbal dib dambe la rajeynayo mooyaane mid hadda inta Premier League la keeno Newcastle lagu horkeeni kara ma ahan iyo tiimka la mid aba marka isna akhyaaray suuqa ayuu maanta ciyaaryahanka aad ugu jiray oo hadaladiisa lagu hayay Yuri Tielemans akhyaaray maxaa ka leedihiin Arsenal waan ku wareeray wararka xitaa laftirkooda intay ku wareereen ba waxay dheen Arsenal anagu waa idin fahmi laana Eduna wuxuu noqday sidii laaci oo kale movementigiisa waa la socon laayahay iyo halkuu suuqa kaga jiro meel aadan ka filanaynin buu ka soo baxaya waayahan Rafinha Arsenal raadinaysa yaa is oran jiray Arsenal ba waxay raadinaysaan Lucas Paqueta Kagpo ninka waxa weeyaan aad buu u socod badan yahay waxaan laga yaabaa inuu Arsenal ninkan maaragtay uu meel kale haatan inta uga soo baxo ciyaaryahanka sida Gabriel Jesus oo kale inuu ku soo tuuri doono wax lama filaan nooga dhigi doono oo hadana si loo joogo mid Zinchenko ahaana noogu soo dari doonaba marka warar ahaan suuqa maanta inta ayaa ku idlayd wixii soo gudboonaadana waa idin soo gudbin doona akhyaaray idinkuna cimaamada iyo macwiistaba korhana loogu hayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh